ربو تبشد عندي كسر حلدها كتيرا ربو حبشد نفتيو على عالكي غيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا مالين عصب إيه والنسبة إكرام. كود waxaan rabaa inaan mahad u celiyo dhammaan dadkii isoo waceen oo isoo raadiyeen. Alxamdulilah waa nabad qabnaa, wax dhibaata ma jirin, just quarantine wada galnay. Haddana waa kana alxamdulilah waa soo noqonay iyo sanad cusub. Ilaahay sanad wanaagsan ha nooga dhigo, khayrkiisana ilaahay hana siiyo. Maanta waxaan rabaa inaan ku furo mowduuc oo aad iyo aad important u ah, which is waxa mowduuca waqtiga. Kulligeena waa maqalnaa, waana dhahnaa maalin kasto waqti ma haynin, waqti ma hayi, waxaan ma samey kari, markaa waqti hela waxaasan suubi doonaa. Waa kulligeena waxaan ku noolnahay waqtiga rajada oo maalimaha ka mid ah insha allah inaan waqti helayno, aan suubinayno wax kasta aan rajaynayno. So run ahaantii markii la sheego waqtiga waxa waaye wax oo waqtiga isma dhalayo, oo waa inaa waqtiga aad xukuntid waayo oo waqti aad samaysid wixii important ku ah si aad u deeqsiisid maalintaada. haddii waxa important ku ahayn then wax laga walwala ma aha oo maalin kasta loo dhaho waxaan sameynaa markii aan waqti helo. Marka sida u ogtihiin Mareykanka ama Amerikaanka waxay dhahaan waqtiga waa lacag, so waqtiga lacag buu ku fadhiyaa. Waqti dhumiska waxa waaye lacag adoo qasartay la mid tahay, because 2 saac 3 saac 4 saac ama television fiirsanaysay ama meel iska fadhisa oo waxba wax aan soo kordhinaynin, faa'iido la aan samaynaynin, waxa waaye khasaaro. lacagana kaaga dhumayso because 4 saacadood waa shaqay kartay, lacagana samayn kartay. carabta waxay dhahaan waqtiga waa dahab, so waqtiga marka aad iyo aad wax qiimo leh waaye markii lacag iyo dahab lagu matalo, wax oo aad iyo aad important u ah waaye. So maanta waxaan rabaa qodobo yar inaan kuu sheego oo aad waqtigaaga kaga faa'iidaysatid, because sidaan ku dhahay waqtiga isaga waqti ma dhalayo, waa maalintii 24 saaca ku jirto, kamana badanayso wax kasta aan sameyno. laakiin waxaa important ah inaan anaka noqono dadki controlayan waqtigooda si aan uga faa'iidaysano. sidaa u ogtahayne adduunyada waa waqti iska gaaban, so ilaaha u korto nolosheena heerkay gaaraysa iyo halaha aan noolaanayno, laakiin waxaa khasaare ah inay teena soo gasho anakoo waqtigeena ka faa'iidaysanin. so midda koobaad aan jeclahay inaan ka hadlo waxa waaye qofka aad iyo aad important u tahay inaa ogaatid horto marka indhaha soo kala qaadid maanta maxaa plaankayga ah, maxaan qabanaa, ajendadayda maxaa ii qoran, waxyaabaha importantiga ah aan suubinayo maxay yihiin. so badanaa dadka waxaan dhahaa habeenkii intaadan seexanin warqad iyo qalin qaada ee qor waxyaabaha berita aa samaynaysid, si oo markaas soo kacdid aa indhaha u taagtaagin oo maxaan qabanaa iyo xaggee aan ka bilaaba aandan dhihin. so xataa haddaad tahay qof oo shaqaynin oo hooyo aad tahay, caruur haysata oo guriga joogto, it's very important inaa og tahay subaxii markaas soo kacdid maxaa waaye waxa aad suubinaysid. waxay noqon kartaa simple things of xataa caruurta haddaa quraac u karinaysid, marmar hooyo kasta way ku dhacdaa, waa soo kacaysaa, okay maxaan kariyaa maanta, ama maxaan quraac siiyaa, ama ilmaha qada ooga dhigaa. fikirka intaa ku fikiraysid waqtiga kaa qaadane. laakiin haddaa habeenka ka horeeyo qortid 10 daqiiqo inaa qaadatid oo dhahdid okay berito ilmaha bankiga u dubaa for quraac, qadana waxaan u karinaa berisi hilib, already waa og tahay maskaxdaada way ku jirtaa plankaaga waxaa karinaysid. subax markaa soo kacdid just jikada gal kari waaye. so it's really important like ilmaha markii iskoolka loo diyaarinayo habeenkii intii markay seexdaana dharkooda la diyaariya, si oo subaxi markaa soo kacdid adiga ilmihiioo daahsan oo adoo diyaari isdhehaysid aadan qolka uga dhex noqnoqonin oo aadan u raadinin maxaan u geliyaa maanta iyo wadarka muxuu yahay iyo waxaaseeto dhan waqti kaa dhumay waaye maalintii. so midda ugu horeysa waxa waaye aanta qofka dhahaayo plan samey habeenkii qor waxay subaxii sameyn lahayd, si ama subaxii markaa soo kacdid bum aa u samaysid waxaa samaynaysa. midda labaad waxa waaye prioritize, kala hormari. wax kasto aa samaynayna important ma aha. waxaa jiro waxyaabo oo must ah laazim inaa la suubiyo, daruuri waa inay maanta dhamaystirmaan. waxyaabo waxaa jiro berita la samey karo oo daruuri ahayn haddii la sameynin. waxaa jiro waxyaabo oo qof kale ay samey karto. so qasab ma aha inaa listi dheer qortid, just listigaaga waxaa ku qorataa wixii important ah. maxaa horta
important maxaa waxyaabaha oo like qofkii haddaa shaqaysid camal waxaa qabtaa projectyaal oo lagaa rabo berito ama beri dambe ama bisha aakhirkeeda so that's important inaa ka bilowdid waxaaseeto haddaa meeting yaal leedahay oo inaa ka qayb gashid ee tahay that's very important waaye because shaqadaada waaye so laakiin haddee tahay wax oo qof kale samey karto maybe qofkaaseeto u dir hebelow adi samey waxaanayta dheh haddii ee guriga mas-uuliyaddiisa ee tahay ilmaha maybe mid inoo suubiyo mid alaabta inay ku dhaqdhaqdo haddii adi wax kale aa samey lahayd waqtigaasita qasab maaha inaa waxa dhan adile aa samaysid ama listigaaga aa isku dheeraysid because marmar listi dheer markaan qorno oo waxyaabo badan aan rabno inaan suubino overwhelmed aa ku noqonaynaa way naga badanaysaa markaas meelaan ka bilaabnaan ka sabaynaynaa so listiga waxaa important inay ahaato listi gaaban oo waxyaabaha muhiimka ah leh kugu qoran yihiin si oo easy ee u noqota inaa waxyaabahaasita wax uga qabatid midda saddexaad aan rabo inaan sheego waxa waaye of course inaa focus garaysid so a lot of kulligeena waxa waa naqaanaa hadda especially with technologyga telefoonka 20 jeera message lasoo gelihaa anakoo shaqaynayno so markasta oo message noo soo gala markoo telefoonka noo soo dhaco markii aan isdhahna facebooka fiiri ama instagramka maxaa soo gale waxaas dhan distraction waaye waqtiyuu qaadanaa aan haddaa fiirisid xataa ada isku baroobey waxaa jiro hands off mia wala hand free waxa la dhaho oo telefonaadka ay qabaan I think androidka wuxuu qabaa hand free iphoneka wax kaleetuu qabaa laakiin monitor garee meeqa saac aa maalintii ku dhumisaa just telefoonkaaga ama social media ka fiiri ama newska ka aqri ama ku hadal ama text garee wuu ku xisaabaa andan habeenkii aakhirkiis fiiri meeqa saaca telefoonka ku spend garayse halahaasoo saa waxay ka go-an tahay wixii aa qaba lahayd maalintaada so maalintii haddii shaqada dhexdeed haddaa ku jirtid so 2-3 hours telefoonka isticmaasha inta 8 saaca shaqaynaysa that's 2-3 hours shaqa aa qaba lahayd oo dib u dhacde maalinta kaleeto so it's very very important distractionka inaan iska yareeno hadda gurigan ka shaqaynoona badankeena so waxaa jirta dad badan oo telefishinka meesha ka daaran yahay oo waxaana suubinayaan shaqaynooyin that's distraction waqti dhumis waaye waxaa jiro caruurtii marmar waa ku wada qasbannahay caruurta meelaan iska geena mala hadda iskool ma jiro soo gurigay joogaan buuqooda kala celintooda adigiyoo shaqaynaysid that's a lot of distraction waaye so haddaa aragtid waxyaabo badan oo waxaa jiro waxaa noqonaya oo koos gareynaya shaqadeena inay dib u dhacda ama waxyaabihii aan qaba lahayn inay dib u dhacaan just because distractionka so aadii waxay important u tahay waxyaabahaaseyto oo na interrupti gareynaya inaan iska yareeno waxyaabaha aan controli karna at least telefishinka haddan sanaada telefoonka afka dhig maybe saacadaha aa shaqaynaysid ama saacadaha aa project mucayan aa samaynaysid si oo maalintii at least aa u heshid 2-3 saacadood oo focusta ah tahay oo maskaxdaada iyo wax kasta ah just halka mawduuca samaynaysid ku mashquulsan tahay midda kale waxaa jirta qofka inay barato inay maya dhahdo so kulligeena saaxiibaan qabnaa iyo ehel iyo waxyaabo badan oo nalaga wacaayo oo jirto oo like important ahayn kaalinta iska soo fadhiisa nolol sheekee iyo yes way fiican tahay inaa la socialize gareeyo inaa la baashaalo oo dadka lagu xirto laakiin waxaa jiro markii oo waxyaabo important ah arabna inaa suubsano waxaas haddii wax daruuri ay ahayn ama event ay ahayn oo qof inay daruuri tahay inaan ka qayb galno it's okay marmar inaa la dhaho maya israali ahaa miimaan kara maanta waxaa rabaa inaa suubiyo because wiigii haddaa 3-4-5 saacadood aa ku spend garaynaysid dad le inaa la fadhisid oo la baashaashid then waxaa khasaaroosaa 2 saac waxaa bara kartay program cusub aa bara kartay diinaa bara kartay hal aayada xifidi kartay so ka fiirso waqtigaas badan aan spend garaynoyo maxaa igu soo kordhooyo and always waxaa important meesha aa fadhisid waxsha aa waqti ku dhuminaysid waxaa ka faa'iidaysaa wax maa ka barate cilmi maa lagugu soo faa'iideeyey caqli maa lagugu soo kordhiyey because meel horta oo caqli ama cilmi aan ka faa'iideynin faa'iidadeeda iska yar of course again ma ka hadlaya silata raximka waajibaana wada saaran inaa ehelka xariirino so ehelka inaa la xariiriyo waajib waaye laakiin waxyaabaha oo xadka ka baxsan oo faa'iido la'aanta ahne and most of the time waa iska ognahay markaa isku wada nimaano xan waaye iyo dadnaan laga hadlay iyo waxaa faa'iido lahayn inaan ka wada sheekeeno wax oo fiican ma aha oo kheyr ku jirana ma aha so marka waqtigaa u fiirso haddii oo waxa faa'iido kugu jirin
oo waxba caqli cilmi lagugu faa'iideynaynin meesha waxa u fadhisid gardaro waaye ee maxaa saacadahaasayta ku samayn kartaa si aa uga faa'iidaysatid anigoo hadalka idinku soo dheerinin halahaas arabo maanta inaa idiin soo jeediyo sanad wanaagsan insha allah waxaan rajaynaa every week inaa video cusub soo geliyo ilaahay wax xunaha naga haayo waa mahadsantihiin iyo wellness with ikram salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ربو تبشد عنديها كسر حلدها كتيرا ربو حبشد نفتيو على عالكي غيري